kadib dalalkii isdabajoogaha ay ka dhacayeen degmada Balad Xaawo ayaa waxaa arrintan si degdeg ah ugu soo jawaabay gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Sharci Cabdullaahi Keenan ayaa saaki qabtay shir jaraa'id loogu hadlayay arrimo dhowr ah la xiriira xiisadda colaadeed ee ku soo korortay degmada Balad Xaawo gudoomiyaha ayaa arrintan ku tilmaamay xaaladda inay u baahan tahay feejignaan dheeraad ah isla markaana uu amray ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada inay galaan heegan buuxa si loo xaqiijiyo nabadda iyo kala dambeynta si loogana hortago karo falal kasta oo khatar gelin kara amniga shacabka sidoo kale gudoomiyaha wuxuu ugu baaqay bulshada magaalada Balad Xaawo inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka kana fogaadaan warar been abuur iyo falal kicin kara xiisadda isagoo ku adkeeyay maamulka degmada ay ka go'an tahay ilaalinta nabadda iyo badbaadinta muwaadiniinta ugu dambeyn maamulka degmada ayaa sheegay in si dhow u soconayaan xaaladaha degmada ayna qaadi doonaan tallaabo kasta oo laga maarmaan ay tahay si loo xakameeyo xiisadda loona sugo amniga guud ee magaalada Balad Xaawo waa kan asagoo ka waramaya xaawo meel kastoo joogaan salaan kadib waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo xaaladihii u dambeeyay ee degmada iyo wixii ka soo cusboonaaday awalan qodobkayga koowaad waxaan rabaa halkan in aan kula wadaago guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland in gudoomiyaha degmada Kismaayo Axmed Maxamed Islaam uu mar kale iclaamiyay dagaal ama guluf in lagu soo qaado degmada Balad Xaawo asagoo diyaariyay ciidamo maleeshiyaad ah oo horey u joogay gudaha Kenya gaar ahaan degmada Mandera xaafadda BP1 iyo kuwo kale oo ku diyaariyay degmada Doolow waxaan rabnaa marka dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland khaasatan shacabka reer Balad Xaawo inay ogaadaan in gudoomiyaha degmada Kismaayo Axmed Maxamed Islaam uu mar kale iclaamiyay in dagaal gardarro ah khas ah nabad looga qaadayo degmadan inuu iclaamiyay in uu soo qaado asagoo isticmaalaya maleeshiyaadkaas sida aad ogtihiin degmadan Balad Xaawo waxa aan qabanay oo gacanta maleeshiyaadkii dadka cunaqabatay isgaarsiintii dhibaatada culus u geystay aan ka saarnay taariikhdu markay ahayd taariikh 31 July 2025 maalinkaas wixii ka dambeeyay oo bulshadii isgaarsiintii iyo howlahoodii kale aan u fasaxnay waxay galeen degmadan dariska aan nahay ama dowladda Kenya galeen gaar ahaan Mandera xaafadda BP1 meeshaas waxay ku diyaar garoobayeen muddo 6 bilood ah halkaas ay ku diyaar garoobayeen Axmed baa meeshaas ay macnaha 200 oo cuskeeriyaad ku siinayay oo mushaar ahaan u siinayay meeshay waxay ku sameysteen gaadiid ayagoo qabaa'il ah 6 bilood oo meeshaas ay deganayeen waxay dhex degan yihiin dowladdaas Kenya dabcan waxaan isleeyahay ayadana way uga warqabtaa maxaa yeelay dowlad ciidan maleeshiyaad ah hub gaadiidka dowladda wato hubkii dowladda wato oo gudaheeda ku jira dabcan waxaan isleeyahay way ogtahay waxaan leeyahay marka gudoomiyaha degmada Kismaayo haddii mar kale dagaal aad cilaamisay oo aad rabto deegaanada ee dowladdu gacanta ku hayso gaar ahaan hadda degmada Balad Xaawo inaad dagaal ku soo qaado ciidamadii shalay ka saaray degmadan way joogaan waliba ayagoo inta ka badan xuquuq leh diyaaradooda aysan kala go'eynin dhaawacooda macnaha dal iyo dibadba loo qaadayo iyo saraakiishi iyo raggi ka saaray waa heegan waa diyaar waxaan leenahay mar kale ugu celinaya dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland anagu wax dagaal ah oo maanta aan diyaar u nahay ma jiraan laakiin haddii lagu soo xadgudbo xuduudaha iyaga oo maleeshiyaad hubeysan xuduudaha iyaga ay ku soo xadgudbaan anagu waxaan diyaar u nahay in waajibkii qaranka ee na saarnaa in aan gudano oo aan ilaalino madax banaanida xuduudka iyaga shacabka iyaga iyo degmada iyada marnabo gardarrada ama weerarada
ama colaada uu abuurayo gudoomiyaha degmada Kismaayo ma noqon doonto waxaan indhaha ka fiirsano ee wuxuu nagala kulmi doonaa iska caabin insha Allah anagoo ilaalinayna madax banaanida xuduudka iyaga iyo sharafta shacabka iyaga insha Allah Ilaahay hadii uu yiraahdo intaas markaa qodobkaas waxaan rabay inaan u iftiimiyo dawladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland khaasatan shacabka reer Balad Xaawo qodobka labaad waa arrimaha xuduudka dawladda Kenya dariska nahay ee walaalaha nahay sida aad ogtihiin dawladda Kenya waxaa naga dhaxay xiriir soo jireen ah daris baan nahay walaalana waa nahay xuduud dheer baan leenahay bilooyinkii hadda u dambeeyay ama intii hadda raggan maleeshiyaadka ah ay gudaha Mandera ay galeen waxaa jiray caqabado amni darro oo soo laabtay kuwaas oo saan isleeyahay keenayo wada shaqeyn la'aanta labada degmo iyo raggaas maleeshiyaadka ah ee hubeysan ee horay iyo gadaal u sii socdo waxaa jiray ciidan maleeshiyaad oo degmada Mandera degan ciidankaasi asaga ah ayagoo hubeysan bayna Mandera galaan ayagoo hubeysan bayna ka soo baxaan caqabadaha ugu badan ee amni darrada keenana waxa abuuro waa ciidankaas